waxa meesha ka socda wax naxadin la ka socda waxa weeye dagaal aan dhamaanayn oo soo noqonaya oo ilaa 7 jeer la tagay oo xukuumadda iyo cid waliba ay tagtay oo la dhex galay baa dhacay marka ugu horeeyay wixii dhintay labada dhinacba waa u tacsiyeynaa wixii dhaawacan ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inuu caafimaad sare casiyo waxa weeye waxaan wax loo adkeysan karayo maaha waxa weeye waxay isku dilayaan waa dad wada darisa wadayaal isaqaan sabab isku dilayaan hadda dagaalkaas inta u soo noqnoqonayo waa wax la yaab yahay una maleyn maayo dagaalku inuu ka socdo dadka deegaanka degan meelo kala dagaalkan ka socda iyagu way isaqaanin abtiga isu yihiin saydiyeey isu yihiin walaalo yihiin inta waa wada joogeen dagaalka reeruhuna wuu dhacaa laakiin wuu istaagaa laakiin sababta kale 7 jeer u soo noqnoqonayo wax laga yaabaya weeye waxaan leenahay dadka deegaanka salaadiinta uqaasha culaamadiinka waxa weeye in la dhex galo Soomaaliland weyna xoogeeda saartaa sidii dagaalka loo joojin lahaa marka waxaan xukuumadda faragnaa in katroolada la xidho dhaqdhaqaaqa la joojiyo banto la saaro dhulkaas oo banto la saaro cidina ayeenkana cidina ka soo bixin wixii taakula u wadana la qabto oo yana meeshii gacambira lagu haduu go'aan gaaro in laga daba hadlo ma waxa weeye cod baa jira dhin walba xaq buu leeyahay inuu codkiisa bixiyo wixii ay la tahay inuu sameeyo hebel dhex maaha iyo gudoomiye ku-xigeenku ma codeeyo isaga gudoomiyaha cod ma leh xildhibaanadu iyaga mooshinka keenay iyaga u codeeyay isagu waa jeergareeyay deebar haduusan cod balahayn oo isagu hadalku u qaybinay marka aniga waxay la tahay waxa weeye kolahan uma fiicna go'aanku mar haduu dhaco halkaas ku dhamaado